goobahani ganacsi ay lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xirtay dawladda hoose ee magaalada Johannesburg ayaa waxay yihiin goobaha laga cunteeyo ee maqaayadaha ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mever. Mar aan mikrofoonka TV-ga Kalsan la dhaxmaray goobihii la xiray ay ii sheegeen milkiilayaashii laga xiray maqaayadaha in uu muddo 2 maalmood aysan shaqeynin, haddana aysan ogeyn xilli ay furi doonaan goobahooda ganacsi. markaynu fasaxeen shuruudii aan soo buuxinay saaka maxay dhaheen iska xira meesha ilaa amar dambe anaga amarkaana waa ku fulisay liiska dibraadina waa la qaxay waxa dawladda sharciga la fadhiyo ka khabarno hay soo hay هذا هاي بدل سعودة ماشى دي أنا يا سياسة ماشي سياسة كسعودة صح سومالي أنا واحد أبغى نتاعي بس نسيده أنت بدنا شرع الآن سكفر حدي وشرع حتى العبد أنا كبح ما حير وأنا كعيشتان صح كل سومالي تبدو بدنا بس نسيده دعسين شرعيود مركي هذا الأيام مركي هذا وجهنا سيري ولا هو قبصده مركي اللي هي سنة شرعي عافمات واحد إيزي ما صح ولا أنا أكتر سير لو بحيا Soomaalida waraaq ma doonayso waxa waxyaabo weyn taxawiyaan nadaafad xumada maqaaxiyaha Soomaaliya ahaan hadda waan tagnay shalay waan tagnay oo waraaqi wixii loo banaanta badan geynay waxyaabo hadda naga dhimana waxayna bilaamiyeen maanta waan tagnay waan soo dabarno hadda way yimaadeen xaafadda ku soo noqdaan ma xidhan inta badneed haddana 2 saac ma la sano kulli wixii hadana ka soo baxeen Idris Sheikh Ahmed Gure, telefishinka caalamiga Kalsan, magaalada Johannesburg, dalka Koonfur Afrika.